wardegdega madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa ilaa hadda aan loogeen meelo jaanic cirab uu dhigay kadib markii baraha bulshada lagu baahiyay in xitaa suuragal ay tahay inuu dhintay isla markaana nafta ay ka baxday madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro sidoo kalena wararka qaar ayaa sheegayaan in jaan iyo cirab meel uu dhigay aan loogeen madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro tan iyo 23 Abriil xilliga uu anbabaxay dalka Imaaraadka Carabta isu tag Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland ayaa xiriirkoodii muddooyinkii u dambeeyay si wacan ugu dhaxeeyay isla markaana u wada shaqeynaya iyadoona Imaaraadka Carabta ay ahayd cid ka dambeysay aqoonsigii Israa'iil ay aqoonsatay ee Soomaaliland ayaa haddana la soo tabaaxaya in mar kale aanu la ogeen meel uu jaanic cirab uu dhigay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro siyaabo kala duwan ayaa looga hadlayaa ee baraha bulshada qaarkii ayay sheegeen in qolada loo yaqaano maasuuniyadda inuu ku biiray Cabdiraxmaan Ciro isla markaana uu ka mid yahay ee qoladaas si Soomaaliland ay u noqoto dal buuxa oo loo aqoonsado iyadoona ay ka shaqeynayso Imaaraadka Carabta in Soomaaliland ay aqoonsan doonaan ilaa iyo 7 dal isla shalay ayay ahayd markii Soomaaliland ay magacaawday safiirkeeda ugu horeeyo u fadhin doono ee Greega tanina waxaa lagu saleeyay inay ka dambeyso ururada ay ka mid tahay Mossad sirdoonka Mossad inay ka shaqeynayaan sidii kaalin mugle ay ugu qayb qaadan lahaayeen aqoonsiga iyo si lamid ahba madax banaani ay u heli lahayd Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa la sheegay joogitaankiisa oo anbabixidiisa ee safarka isu taga Imaaraadka Carabta ay kaliftay in la waayo ee bartiisa gabi ahaanba sidoo kale in warbaahinta uu ka aamusnaado muddo intaan la egmaysan dhicin ayaa la sheegayaa iyadoo 23 Abriil dadka raacay sidoo kale hadii war laga heli lahaa la sheegay inay yihiin dad xigtadiisa dadka safarka u raacanay ahaayeen dad qaraabo hoosaadka madaxweynaha isla markaana xigtadiisu ay ahaayeen ilaa hadda war lagama hayo sida la sheegay ee madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro meel uu joogo iyadoona sidoo kale qarsoodi dhowr safar oo qarsoodi hore u galay isla markaana ay ka mid ahayd xitaa inuu Qudus uu tagay ayaase ugu dambeyntii la ogaaday maalmo qodha markuu maqnaa laakiin imika sase 23 Abriil ilaa imika lama oga meel jaanic cirab uu dhigay madaxweynaha Soomaaliland marka hore haddaan ugu cusub tahay daawadayaasha sharafta leh nagu soo biir subscribe sar channelka like gare share gare muuqaalka asxaabtaada si gaarsii si aad u ogaatid halkuu ka maqan yahay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro iyo waxa imika uu qabanayo waayahay aynu guda galno madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa gabi ahaanba loogeen meel jaanic cirab uu dhigay isla markaana uu ku maqan yahay iyadoo warar kala duwan la soo tibaaxaya ay sheegayaan in madaxweynaha bartiisa la waayay gabi ahaanba wararka qaar ay sheegayaan laakiin aan xaqiiqo rasmi ah loo helin inuu dhintay madaxweynaha isla markaana taa oo sababtay in la qarsho ilaa iyo xal waara laga gaarayo ee xalinta ee meedkiisa dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay ayaa ka socda gudaha Soomaaliland gaar ahaan madaxtooyada Hargeysa halka oo la sheegay inay dhammaan heegan la gelay ciidamada kala duwan oo gaar ahaan taliyaha ciidamada Soomaaliland Nimcaan Gaxnuug ayaa la sheegay in amar buuxa uu siiyay saraakiisha u dhow gaar ahaan saraakiisha ay yihiin xigtada ayaa la sheegay inuu ku wargeliyay in xaalad degdeg ah oo emergency ay ka jirto isla markaana loo baahan yahay in saacad kasta ay diyaar ahaadaan intii uu maqnaa madaxweynaha waxa shakiga dhaliyay ayaa ah in howlihii madaxweynaha looga talagalay si buuxda u maamulayo madaxweyne ku-xigeenka isla markaana oo la sheegay inuu kaalin mugle oo ka qaadanayo booskii madaxweynaha xitaa waxaa la sheegaa in xafiiskiisa uu ka howlgalayo madaxweyne ku-xigeenka xafiiskii madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro inuu si toos ah ugu shaqeynayo warbaahinta ayuu la hadli jiray isagoo aan maqnaan jirin muddo inta leeg laakiin imikase lagama hayo war iyo weecaalba halka jaanic cirab uu dhigay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro baadi goob xoogan ayaa ka socota iyadoo dhawaanna ay qabsoomayso 18 May oo u dabaaldegi doonaan shacabka Soomaaliland maalintii maamulkaasi dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay ayaa ka jira Hargeysa iyo si la mid ahba dhaqdhaqaaqo culus oo lagu doonayo in caalamka ay aqoonsadaan Imaaraadka Carabta dalkaas isu taga ayaa ka shaqeynaya sidii Soomaaliland ay u noqon lahayd dalka madax banaan Soomaaliya dadaalo xoog badan oo la sameeyay dhinaca kalena Cabdiraxmaan Ciro ayay la xoogeysay kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay ka erisay Muqdisho iyo si la mid ahba guud ahaan dalka taa oo kaliftay in xiriirka ay u sii jaraan ee Soomaaliya iyagoo qaar ka tirsan ciidamada Soomaaliya ay maalgelin jireen Imaaraadka Carabta inay ka qayb qaadan jireen amniga iyo dhisidda wadooyinka caasimadda laakiin dhammaanba mudaakhalaadkii dakhligadaasi toos ayay u gooseen iyagoona la sheegay inay u weecdeen dhanka iyo Soomaaliland
cabdiraxmaan ciro iyo maxamed bin zaayed ayaa sii weecanaaday xiriirkooda u dhexeeyay ee labada dhinac iyadoona ay dooneyso isutaga imaaraadka carabta in aqoonsi buuxa ay siiso ee somalilan sidoo kalena ay ka shaqeynayso sidii loo aqoonsan lahaa halka dhowaan ay ahayd maxamed bin zaayed oo booqday dalkaasi hindiya ujeedada iyo si lamid ahba ajandayaasha ugu muhiimsan ay qeyb ay ka ahaayeen sidii loo aqoonsan lahaa ee somalilan ilaa iyo 10 dal oo kale ayaa lagu wadaa inay si rasmi mar quda inay ku dhawaaqaan ismarkaana ay ku sheegaan in somalilan ay tahay dal madax banaan laakiin xaalado jira awgii imika la sheegay inaysan tallaabooyin qaadi karin taana oo lagu sheegay inay tahay iyaduna ay kalifayso in la dejiyo xaaladda imika ismarkaana dib loo dhigo aqoonsiga la doonayo waxaase la sheegaa in waqtiyo cayiman lagu soo aadshay ismarkaana la qorsheynayo in si toosa loo aqoonsado somalilan oo ay noqoto dalka madax banaan ee soomaaliya laakiinse hadalka iyo su-aasha isweydiinta mudan ayaa halkuu ayuu ka dambeeyaa madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro mameedkiisa ayaa laga soo dejiyey garoonka ee dalkaasi hargeysa aan yiraahday garoonka hargeysa cigaal international airport mise maxaase ka khaldan oo miyuu joogaa israa'iil miyuu jooga sirdoonka muusaad ayaa ka shaqeynaya sidii ay u qarin lahaayeen ee madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro marka hore haddaan nagu cusub tahay daawadayaasha sharafta leh nagu soo biir subscribe saar channelka like garee share garee muuqaalka asxaabtaada sii gaarsii si aad u ogaatid halkuu ka maqan yahay madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro iyo waxa imika uu qabanayo waayahay aynu gudagalno madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa gebi ahaanba loogeen meeluu jaan cirib uu dhigay isla markaana uu ku maqan yahay iyadoo warar kala duwan lasoo tibaaxaya ay sheegayaan in madaxweynaha bartiisa la waayay gebi ahaanba wararka qaar ay sheegayaan laakiin aan xaqiiqo rasmi ah loo haynin inuu dhintay madaxweynaha isla markaana taa oo sababtay in la qarsho ilaa iyo xal waara laga gaarayo ee xalinta ee meydkiisa dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay ayaa ka socda gudaha somalilan gaar ahaan madaxtooyada hargeysa halkaa oo la sheegay inay dhammaan heegan la geliyay ciidamada kala duwan oo gaar ahaan taliyaha ciidamada somalilan nimcaan gaaxnuug ayaa la sheegay inuu amar buuxa uu siiyey saraakiisha u dhow gaar ahaan saraakiisha ay yihiin xigtada ayaa la sheegay inuu ku wargeliyey in xaalad degdega oo emergency ay ka jirto isla markaana loo baahan yahay in saacad kastoo ay diyaar ahaadaan intii u maqnaa madaxweynaha waxa shakiga dhaliyay ayaa ah in howlihii madaxweynaha loogu talagalay si buuxda u maamulayo madaxweyne ku-xigeenka isla markaana oo la sheegay inuu kaalin mugle oo ka qaadanayo booskii madaxweynaha xitaa waxaa la sheegaa in xafiiskiisa uu ka howlgalayo madaxweyne ku-xigeenka xafiiskii madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro inuu si toosa ugu shaqeynayo warbaahinta ayuu la hadli jiray isagoo aan maqnaan jirin muddo intaa la-eg laakiin iminkase lagama hayo war iyo weecaalba halka jaan iyo cirib uu dhigay madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro baadigoob xoogan ayaa ka socota iyadoo dhowaanna ay qabsoomeyso 18 May oo u dabaaldegi doonaan shacabka somalilan maalintii maamulkaasi